marka ay dadku ka fekerayaan lama degaan baadiye geel iyo masas ayaa maskaxdaada ku soo dhacaya hase yeeshee xayawaano badan oo kale ayaa ku nool lama degaanka dawacooyinka caarada iyo xayawaano kale ayaa ku nool goobtan xayawaanka Arctic ee laga helo saxaraha waa mid ka mid ah ugxanta ama xayawaanka ugu quruxda badan nasiib darrase dadka adduunka oo idil waxay ugaarsadaan geesiheeda quruxda badan sidaa darteedna ayay khatar ugu jirtaa Death Stalker Scorpion waa nooc ka mid ah xayawaanada laga helo saxaraha Soomaali ahaan waxaan u naqaanaa dabaqalooca waxa uu kori karaa ama uu korriin samayn karaa ilaa iyo 10 sentimitir waana xayawaanka loogu cabsida badan yahay saxaraha xataa waxa uu ku hoos geli karaa kabahaaga qaniyadiisuna waa mid aad u halis badan oo wadata sun aad u daran geelu waa mid ka mid ah xayawaanada ugu manaafacaadka badan dhan walba gaar ahaan dhanka saxaraha waxa uu leeyahay adkaysi badan sida in aanu biyo u baahan muddo dheer oo taa waynu ka wada dhareegsanahay oo waxba ku sii dheeraan mayno Mandilo lizard waa xayawaan aad u qurux badan oo leh liidimo Soomaali ahaan waxaan oran karnaa mulac waxaana laga helaa lama degaan ku yaala dalka Koonfur Afrika waxaana uu ku nool yahay dilaacyo ku dhex yaala dhagaxaan waaweyn oo ku taala lama degaankaas Mandilo lizard waxyaabaha uu mucjisada ku yahay ayaa ah haddii uu cabsi dareemo inuu sameeyo muuqaal u eg kan kubadda kaas oo ka difaacaya cadowgiisa Oni Devil waa hangaraarac isna ku nool saxaraha waxa uu leeyahay qodxo badan kaas oo iskaga difaaco ugaarsadayaasha dadka daraaseeya xayawaanada ayaa hangaraaracan ula baxay Oni Devil hangaraaraca shaydaanka maadaama uu si waali ah isaga celiyo wax kasta oo ugaarsada daawadayaal barnaamijkeena xayawaanka intaas ayuu maanta ku eegyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh